bariga dhexe ayaa ku jira waqti xasaasi ah iyo feejignaan sare oo 10 sano u dhameysay uusan gobolkan wajihin. mar walba wuxuu ahaa gobol xudun u ah colaadaha tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. balse hadda wax kasta waxa hore u kaxeeyay oo ku dhaweynaya dagaal weyne ka dhaca gobolkan dilkii madaxii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniye oo toddobaadkii hore weerar ka dhacay Tehran lagu dilay. wixii markaa ka dambeeyay Iran waxay ku hanjabisay inay si adag dilkan uga jawaabi doonto. haddaba si aan u ogaano dhinac ka mid ah xiisadda waxay warbixintan ku siinaysaa jawaabta 3 su'aalood. maxay ka dhigneyd booqashadii xogayaha golaha ammaanka Ruushka uu ku tagay Tehran? waa nooc hubka iyo agabka military ilaa hadda Ruushku gaarsiiyay Iran wixii ka dambeeyay dilkii Haniye. maxay jawaabta dilka Haniye ilaa hadda aysan u fulin Iran oo ay la dahday? aan ku horeeyay booqashadii shalay ku tagay caasimadda Iran ee Tehran xogayaha golaha amniga qaranka Ruushka Sergei Shegov oo ahaa wasiirkii hore ee difaaca Ruushka looma qaadan karo wax fudud ama ma ahan haba yaraatee mid caadi ah maadaama lagu aadiyay kadib dilkii Ismaaciil Haniye iyo Iran oo ku dhawaaqday argoosi iyo jawaab celin adag. Mareykanka ayaa markaa dhankiisa wuxuu awoodiisa dhan isugu geeyay bariga dhexe si uu u difaaco Israel isla markaana Ruushku wuxuu Iran u ballan qaaday inuu la garab istaagi doono Iran wax kasta uu awoodo. Ruushku waa dalka aad ugu faraxsanaan doona xaaladda colaadeed ee ka sii jiraysa gobolka bariga dhexe sababtoo ah dhacdadani waxay ka dhigan tahay Mareykanka inuu halka u jeesan doono maadaama uu Ruushku rabo inuu Mareykanku ka fogeeyo Ukraine. dhinaca kalena ku lugulaanshaha Mareykanka ee bariga dhexe waqtigan waxay noqon doontaa danta Ruushka ee dagaalku kula jiro Ukraine. si lamada markastoo isla marto xiisadda bariga dhexe cidda kor ka daawanaysa waa Shiinaha. Mareykanku si fiican buu u yaqaanaa dabinkan, taasi waa sababta aan had iyo jeer u arkayno hadallada ka soo baxaya Biden iyo saraakiisha sare ee Mareykanka iyagoo ku baaqay inay doonayaan nabad iyo xasilooni ka dhacda bariga dhexe. aan ku sheego ilaa hadda talaabooyinka Ruushka qaaday si uu taageero military u siiyo Iran. tani wixii ka dambeeyay dilkii Haniye, Ruushku wuxuu bilaabay inuu Iran keeno qalab casri oo difaaca irka ah iyo nidaam la soconaya dhaqdhaqaaqa hawada oo horumarsan kaasi oo ah raadarka sheega wax kasta oo ka dhacaya hawada. kadib markii Tehran ay codsigan u dirtay Kremlin-ka si ay u soo gaaraan hubkan casriga oo la sheegay inuu mudnaan u siinayo Iran markastoo ay weeraro kala kulmi karto Israel iyo xulafadeeda haddii ay qaado jawaab wax u dhimi karta Israel. warbaahinta maxalliga ee Iran ayaa sheegtay in Tehran ay codsatay qalabkan xubin ka tirsan ilaalada kacanka Iran iyo sargaal kale ayaa dhankooda wargeyska New York Times u xaqiijiyay in Ruushku uu bilaabay inuu ka jawaabo si dhaqso ah codsiga Iran. Iran waxay sheegtay in Israel ay tahay in lagu ciqaabo dilka Haniye waxayna wacad ku martay inay tallaabo qaadi doonto taasoo sare u qaaday walwalka laga qabo in jawaabteedu keeni karto in bariga dhexe oo aan xasiloonayn uu ku soo dhawaado dagaal dhan walba ah. ururka Iran ay taageertay ee Hezbollah ayaa dhankiisa sidoo kale ku hanjabay inay weerar ballaaran ku qaadi doonaan Israel si ay uga jawaabaan dilkii hogaamiyihii militariga Fuad Shukuri oo lagu dilay meel u dhow Beirut toddobaadkii hore kaas oo ay sheegatay Israel. tanna waxay sare u qaaday in howlgalka ama weerarka jawaabta ee Iran ay qaadayso inuu noqon karo mid sidoo kale ay ka qayb qaadan doonaan kooxaha Iran ay taageertay ku sugan Yemen, Iraq, Syria iyo Lebanon. haddaba ugu dambeyntii aan u nimaano sababta aysan ilaa hadda Iran u bixin wax jawaab ah xilli ay sii socoto hanjabaadda inay Iran weerar ku qaadi doonto Israel. ilaa hadda sida laga arkay jawaabta dib u dhacday ee Iran waxay ku gaartay hadafyo dhowr ah oo ka mid yihiin in la furo albaabka diblomaasiyadda si ay Iran uga faa'iideysto dhacdadan diblomaasiyad ahaan inta suurtagalka ah. Israel waxay ku jirtaa feejignaan, Mareykanka ayaa si la mid ah iyo xulafada kale waxa iyaguna ay ku jiraan feejignaan, xaaladuna uma wanaagsana oo diyaar garowga ay ku jiraan awgeesa. taasi waa dhibaato dhaqaale ahaan iyo marxalad sare u qaadaysa waqtigan xaaladda bariga dhexe. gudaha Israel waxaa ka socda barakacay in goobaha qaar la baneeyay iyadoo sidoo kalena la joojiyay dulmaadyadii. taasina waxay boqolaal Israa'iiliyiin ku qasabtay inaysan dib ugu laaban Israel. waxaa kaloo dhacday inay xirmeen dekedaha iyo garoomada diyaaradaha Israel halka sidoo kale goobaha dadweynaha hoos loo dhigay isku socodka. taana waxay ka dhigan tahay hanjabaadda socotay Iran inay xaalad degdeg ah gelisay Israel. tanna ma ahan mid u wanaagsan Israel sababtoo ah dhacdooyinkan iyo diyaargarow ilaa heerkana waxa uu dhaliyaa burbur dhaqaale oo aad u culus. balse marka loo eego warbixinada sirdoonka ee Mareykanka ilaa Israel weerarka Iran wuxuu dhici karaa toddobaadkan. balse haddii aan aragno inay Iran jawaabteeda ku beegto maalmaha bisha Agoosto ee 12keeda iyo 13keeda waqtiga weerarka Iran wuxuu noqon doonaa mid si ula kac ah loo sameeyay ama taariikh si gaar ah loo doortay. waxaan ka dhalan karaa fariimo badan sababtoo ah taariikhdan waxaa ku jira maalmaha ugu murugada badan Yuhuudda waxayna ugu yeeraan Tisha B'Av. taariikhdan gaar ahaan waa tii ugu murugada badneed taariikhda Yuhuudda waqtiga oo Yuhuudda ay soomaan oo ay xusaan aafooyinkii ku habsaday taariikhdooda sida burburkii macbadka Sulaymaan ee boqortooyadii Baabil. macbadkii labaad waxaa isna dumiyay boqortooyadii Roomaanka. taariikhdan waxay ku beegan tahay Isniinta iyo Talaadada soo socota. weerar ay Iran ku qaado taariikhdaas Israel
waxa uu yeelan doonaa muhiimad astaan ah oo aad u weyn iyadoo aan loo eegin guusha Israel iyo Mareykanku ay ka gaaraan inay difaac ama ka hortagaan weerarada Iran iyo in kale. sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay in kuwani ay yihiin sababaha dib u dhigaya jawaabta Iran. waayo tilmaam sidan oo kale ah waxaa laga arkay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar oo waqti dabaaldega Yuhuudda lagu aadiyay.